fahanka ama la qabsashada nolosha qurbaha gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed oo ardayda badankood qabsan karo ama inay bartaan ay wax badan ka fahmaan public transportation ka laakiin yaa Google Map horta yaa isticmaalay qofka markuu wax fahansan yahay meelo aad ay fahansan waxyaabo soo dhan nolosha fududeyn lahaa waan rajayna insha Allah waxyaabo badan ka maqan wadankeena oo haddana asaasiyaadka dadka u ama shacbiyada ama u bulshada inay reen doontaa haddii waxyaabaas loo fiirsado shaqo la'aanta baahsan ka jirta wadankeena waxaa laga yaabaa kumanaan kun dad inay maxaa la noqoto shaqadooda waxyaabahaas oo dhan anaka ma naqaano wadankeena meela wax ka bilaan ma naqaano marka qasab waxaan uga inaa helno qofna caawiyo ku dhawaad meel camal imaadiin hana qanina dadku ekaada fikradaha dadka ama oo marka qof wareystay oo kale ani canaba ahay hadda maanta waxa ku soo gudbina hadda wax ku soo gudbiyo waxyaabaha kulli habada qaadan maxay la ani bini'aadana waxyaaba ay kala dhinaan karaan tan xitane waxna ma ku qaldanaan kara waxna waa ku saxnaan kara haddana ani adiga kala duwanaan karna waxyaaba waxa laga ani awoodin ama aakrin adina Ilaahay subhanahu wa ta'ala awood ku siiyay awoodid kartid sameyn kartid laakiin ani awoodin hadda adina marka aan ku dhaw wax meeshan problem waaye waxa uu adag yahay hadda qaadatid waxa kugu noqonaya problem wax adiga bir ku soo noqonaya fahanka ama la qabsashada nolosha qurbaha gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed maanta barnaamijkeena waxa ku falanqeyn doonaa ama kaga hadli doonaa mowduucaas dhamaantii soo dhawaada inta ku xiran dhammaan aaladaha ka isticmaala baraha bulshada gaar ahaan Facebook page-kayga iyo YouTube channel-kayga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anagoo caafimaad qabnaa dib iskugu soo laabano mowduuceena hore u guda galeynaa week la soo dhaafayay ama isla weegan gudihiisa waxa ka hadalnay caqabadaha ay kala kulmaan ardayda Soomaaliyeed markay imaadaan qurbaha haddana waxaan rajaynayaa inuu aad u saacidi doono موضوعنا هروماتنا كهلا تاسو فهمك أما لقبسشات nolosha qurbaha gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ilaa idhoor waxa rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha ka hadli doon waxa kamid markay imaadaan ardayda problems kala kulmi karaan iyo qaabkay kaga hortagi karaan videogan insha Allah waa ku soo qulaaseen doona inta aan awoodo waxaan kala qaadi doonaa ilaa idhoor waxaa jirto waxyaabo problems ama dadka ay la kulmaan markay imaadaan ama ardayda markay imaadaan qurbaha dhammaan ardayda ka kala imaadaan dunida daafaheeda ama adduunka oo dhan waxyaabo qaarna waxay gaar u yihiin anaka Soomaali ahaan dadka qaarna way ila arkaan wayna ila fahmaan marka dhamaantiin soo dhawaada waxyaabaha ay dadka ka sameeyeen waxa kamid luqadda diinta dhaqanka waxyaabaha soo dhan dadka common u yihiin markay imaadaan caqabado way kala kulmi karaan hatta saalan waxa ku noolahay wadanka ama dalka Turkiga alxamdulillah wadan muslim waa ardayda qaar waxa laga yaabaa in wadamada qaar aadaan oo kale ama arday badan oo dalka Turkiga joogaan hadda waxa sala barno kale oo kala diin aan ahay marka waxyaabaha soo dhan insha Allah waa ka soo hadli doonaa waxyaabaha awoodo aan aqoon fog u leeyahay waxa aqoon badan u leeyahay insha Allah ma ka soo hadli dooni marka waxyaabaha anaka noo gaarka waxa kamid oo mar walba maskaxdeeda maxaa la xisaabisa ama isbarbar dhig badan aan ku sameeyaa dalkeena wadankeena iyo wadamada kale gaar ahaan wadanka hadda ku noolahay waxaan kamid ah caqabada ugu weyn oo ardayda badankood qabsan karo ama inay bartaan ay wax badan ka fahmaan public transportation ka wadamada horumariyo kale tusaale kale Europe oo kale Mareykan oo kale ama America wadamada ama Canada wadamadaas oo dhan waxa laga yaabaa in public transportation ka inta badan aad u isticmaalin oo waxyaabo iyaga u gaar ama gaariyaal isticmaalaan Asia badankood waxyaabo waxa jiro wadamada adduunka isticmaalaan tariimanka basaska waxyaabahaas oo dhan anakane Africa waxaa sameeyay daraasad badan ay sameeyay Afrika badanka ma isticmaalan ilaa 5 wadan isticmaalo insha Allah waxaan idin kula soo wadaagi doonaa isla videogan clip yar soo gelin doona ama qoraalada iyo waxyaabaha soo diyaariyay idin kula wadaagi doona Afrika badankood ma isticmaalaan oo problemkan waa ka sinaanayna waxa marka ugu horeeyo muhiim tusaale marka hadda anaka imaano kale waxyaabaha kala duwanahay anaka iyo ardayda ka imaadaan Asia oo kale xataa meel fog ma aadeyno ani marka Soomaaliya ka imaadiyo kale waxa u baahanahay qof inuu caawiyo inuu qof garab istaago ama family ha ahaado ama saaxiib ha ahaado ama walaal ha ahaado in liida daheeyo oo maxaa lahaa lii wado hadda adduunyada way horumartay qof walba wuxuu istaa internet iyo Google Map oo isticmaali kara laakiin yaa Google Map horta yaa isticmaalay qofka markuu wax fahansan yahay meelo aad ay fahansan yahay train station ka fahansan yahay kaarko isticmaalay fahansan yahay qaabka wax isticmaalay fahansan yahay inta baana ka manaqaano wadankeena waxaas ma yaalo maxaa lahaa mana isticmaalno haddana waa waxyaabaha asaasiyaadka nolosha qofka bini'aadanka ama wadamada maanta soo koraayo ama kobcay ay u baahan yihiin maxaa yeelay dadka xataa wadamada horumar way u baahan yihiin
dadka markay duqowaan oo kale dhalinyarada dadka yar dad weyn qof walba u baahan inuu helo public transportation dadka maxaa la middle life ka haysto dadka awoodin oo kale inay gaari gataan ay ku socdaan waxyaabahaas oo dhan nolosha fududeyn lahaa waan rajeynaa insha Allah waxyaabo badan oo ka maqan wadankeena oo haddana asaasiyaadka dadka u ama shacbiyada ama u bulshada in sameyn doono naqan doono waxay neereen doontaa haddii waxyaabahaas loo fiirsado shaqo la'aanta baahsan ka jirto wadankeena waxaa laga yaabaa kumanaan kun dad inay maxaa la dhahay noqoto shaqadooda hadda tusaale kale Istanbul waxa waaye magaalooyinka ugu weyn ka mid tahay dalka Turkiga waxaa ku nool dad kor u dhaafaya ama gaarayaan 30 milyan oo kala duwan dadkaas badankoodna dadka maxay haystaan middle life ay haystaan ama noloshooda middle life waaye zaaid maxaa loo isticmaalaa public transportationada waxay kala fududeysaa nolosha intaasoo kumanaan oo dad maxaa la dhahaa tramwayga iyo waxay isticmaalaan tramway dhahan maxaa la dhahaa mitriyada oo dhulalka hoostiisa marayo tariimada basaska marka waxyaabahaas oo dhan anaka ma naqaano wadankeena meela wax ka bilaabno ma naqaano marka qasab waxaan uga inaa helno qofna caawiyo ku dhawaad ilaa 3 maalin ama 2 maalin oo kale inta ka baranaysid meelaha aadaysid iyo waxyaabaha sameynaysid oo kale markaasna waxa kugu sii talinaysaa xalka marka sheego problemka xalkan hore oo sii dabadara qofkii markaas hadaaba heshid qofsas ku caawiyo adina inaa naqatid qof dhiifoon oo dadaalay am familkaaga ha ahaado ama asxaabtaada ha ahaato qofka doona ha ahaado inaa 3daas biri ama 2daas biri gudahood wax walba ku baran kartid ku fahmi kartid adoo naftaada pressure saareen wax walba step waxyaabaha qaar qalad waxyaabaha qaar sax ha cabsanin laakiin waxyaabaha ka maarmin oo kala qaabka u saaranaysid meelaha maraysid elevatorada saa u isticmaalaysid jaranjarooyinka aad ku dheer waxaas oo dhan ha cabsanin habalwalin fursadaada ka faa'iideyso jaaniska ka faa'iideyso dadka haddii qof walbana jaanis ma heeyo ana hadda arday ahay meeshaan ardaynimo jooga maalmihii way xisaabsan yihiin wax walba waa qabanay way xisaabsan yihiin maalmaha fasaxa iyo baashaalka aaday way xisaabsan yihiin marka adina sidoo kale qofka walaalka ama saaxiibka qof walba meesha dan uu jooga qof oo maalayacna u jooga malahan haddii lacala qofka 2 maalin ilaa 3 maalin oo ka caawiyo weliga ha iloon u mahad celi haddii wax ay si kaan qadaan adoo dadka eedayn wax adiga wax walba isku day inaad sameyn kartid tusaale waxa kale oo rabaa inaad sii wadaago marka meel camal imaadiin hana qanina dad ku ekaada fikradaha dadka ama oo marka qof wareystay kale ana waa ahay hadda maanta waxa ku soo gudbina hadda wax ku soo gudbiyo waxyaabaha kulli habada qaadan maxay la bini aadana waxyaabaha ay kala dhinaan karaan tan xigtana waxna ma ku qaldanaan kara waxna waa ku saxnaan kara haddana ani adiga waa kala duwanaan karna waxyaabo waxa laga yaabaa ani awoodin ama aakrin adina ilaahay subhanahu wa ta'ala awood ku siiyay awoodid kartid sameyn kartid laakiin ani awoodin hadda adi marka aan ku dhaw waxas meeshan problem waaye waxa uu adag yahay hadda qaadatid waxa kugu noqonaya problem wax adi bir ku soo noqonaya waxa uu fiir tara garay hadda sameyn kartid samee hadda waxa qabo karin oo yahay baro ama dadka caawinaad weydiiso sidoo kale tan kale aaro in aad sheego marka dadka public soo dhex gashiin waa loo sameeyaan dadka badanka luqada dadka oo simanahay hadda Turkiga oo kale badanka English ma laga isticmaalo mana looga hadlo dadka luqadooda ku hadlaan maxaa isticmaali kartaa telefoonkaaga waxa ka isticmaali Google Translate ama af Soomaali ku qor ama English ku qor kadib oo translate gareene dadka ina caawinaad weydiisid ha ka cabsanin ha ka xishoonin waxa ku fududeeyay in nolosha si fudud u la qabsatid tan kalena gal YouTube-yada daawo ama fiirso dad badan oo waxa jir meesha markay imaadaan public transportation ko kala sharxaayo waxyaabo badan ka sameeyo أنا مركا جانس في عنها فرصة في عن أهله هذا أنت بدن كل جي هاي إني واحد يقعد كاتلاقيها وإن فيديو قسمي لكن واقصص مينا قابك كهرك استعمالي يسيد قابك وحو استعمالي يسيد نبصصك نمبرد قابك كل فهم يسيد جهاد إيميشا أسعتد قابك فهم يسيد جوجل ماب كساو استعمالي يسيد وحيابها صلني وكا عابن دونا بإذن الله الكريم وحان رجينا أذن إن أنا قف ديرنا وحول بإسكو ضياع dadka markay ku caawinayaan inaad ka faa'iideysid fursadaha iyo jaanisiyadaada in isku day badan aad sameeysid tan xigtana aadan ku harin ama ku istaagin qof fikradiisa sidoo kale isbar hadii ay kugu adag tahay inaad maxaa lahaa dadka wax weydiisid sidoo kale YouTube-kaaga gal fiirso information ka ogow xogog badan ka ogow si ay kugu noqoto caawinaad waa public transportation-ka hadaa mar intaas fahantidna waxa ku sahlanaanayso la qabsashada iyo fahanka nolosha meel walbo ama Asia ka imaada waxbarasho imaadid tusaale kale ardayda weyn duwan yihiin oo kale ama gobolada wax ku baranayo kale
ama kii wax ku baranayo kale problem meeshay ka taagan tahay magaalooyinka waaye badankana ardayda markay masterka baranayaan magaaladay wada badan yihiin ana hadda waxaa ahay master waxaan ku bartaa dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul ku noolahay waxaan ku bartay waxyaabo badan dadka qaar ay u arki lahaayeen caqabad ama waxay ku dhibtoodaan ama waxay ku shalayaan oo kale ani cashir ahaan u qaatay waa ka faa'iideystay ilaahayna wuu ii saqiro oo ii fudeeyay maantana waxaa diyaar u ah inaan hiiliyo hoo iyo garab istaag baa ugu noqdo walaalaha iyo ardayda Soomaaliyeed si ay ugu fududaato nolosha aysan qof ugu baahanin qof walba oo u noqdo adi iyo ilaahigaaga ina ilaahay bis u baahan tahay oo waxaan aad samayn kartid dadaali kartid oo wax walbana aad qabsan kartid shalaynaynin maxaa la stress aad ku dareemaynin depression aad ka qaadaynin dadka badankood markay meeshaan imaadaan aad ay u necbeystaan waxyaabo badan oo xun ee ka arkaan ee sheegaan sax waaye waxyaabo badan oo adi aad jeclaysanaynin waa jiri doonaan laakiin adi shaqadaada ma aan hawshaada ma meesha danaa u imaaday dantaada iyo noloshaada ka fiirso waxaa ka samaysan kartid ka samayso dadka qaabka ula tacaamulaysidna mar walba ha ahaado si wanaagsan xataa hadday ay ku xumaan iyo waxyaabaha qaar ay sameeyaan waxyaabaha qaar naftaada qaadan karin waa jirtaa oo loo baahan yahay inaad ka hadashid ama aad ka falcelisid sidoo kale laakiin waxaa kasii qurux badan inaad isbartid samirka waxyaabaha qaarna ka aamusi kartid inaad naftaadana xakameyn kartid kontrooli kartid بإذن الله الكريم انتسنا ودردارا أو تلقى دمان ولالدي الصوماليات وحين نون قندونتا إن شاء الله هذه هم جريدها تاي وإيمان كرتا وحواق بارن كرتا لكن قرشو يهدف ويمو سياسا بريء أدي وحان كوسون قنين sidoo kalena inay aragtid qof walaalkaayo kale oo meesha nolosha ugu degto nolosha ugu toostiyo kale kaliya ha arkin farxadda iyo maxaa lahaa waxyaabaha qaar tusaale hadan meesha ardayda ku ahay waxyaabaha qaar waa soo bandhigaa oo haboon oo dadku wax u tari karo faa'iidi karo laakiin wixii murug iyo wixii si ma qurux badno dadka ina aad soo wadaagtid laakiin cashir markaa soo qaatid wixii aad soo gudubtid oo kale dadku waa la wadaagi kartaa way qurux badan tahay waxaa jiro qof walbo maanta meel hadoo imaado qasab problem wala kulmaa waxaa jiro oo maxaa lahaa badan aan la xisaabi karin oo aragtid oo haddana la gudbaayo ama la soo dhaafayo waxaas dhan way jiraan qof inaad noloshiisa aragtid noloshaada ha barbar dhigin hana u qaadan qaabkaas oo kale inaad u noolaatid waa kala nolol duwannahay waa kala wax duwannahay dhammaanteen waxaa nahay bini aadan qab dhammaystiran adduunyada ma jirto marka dhammaantiin waxaa rajeynaa inuu videogan noqon doono video anfaco dhammaan ardayda ama dhalinyarada Soomaaliyeed una noqon doonto dhiirigelin ama waxyaabo hadaf ama qof tilaabo raba inuu qaado ee dhamaystirkiisa ay u noqoto videodan waxaa noqon doonaa insha Allah kuba taxane videogan waa maalinteen Khamiista videoga ugu talagalay dhammaantiin soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.